السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka kan isaga ah ee ku saabsan arrinkii isaga ahaa ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ah mudane xasan sheekh maxamuud kuna aadanaa xilligii booqashadiisii dalka Mareykanka oo maalmihii tegay ee ina dhaafay uu halkaa ku sugnaa isagoo kula kulmayna sidoo kale marka laga yimaado State Departmentka Mareykanka iyo xukuumaddiisa gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan gobollada bariga gaar ahaan ereyada caasimadda ee Washington DC halkaasoo uu run ahaantii ku kordhiyey bulshada Soomaaliyeed xaaladda ku saabsan ama ku lug leh ciidamada Soomaaliyeed ee weli ku sugan dalka Eritrea kuwaasoo xukuumaddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku qiyaastay 5,200 oo la halmaala iyadoo dalkaas Eritrea ay ugu sugan yihiin ama loo geeyey si ay u helaan ama u qaataan tababar military isla markaasna la og yahay in ciidankaas isaga ah aanu ahayn ciidan hal mar la qaadin balse raacyo kala duwan oo xilliyo kala duwan ah dalkaas isaga ee Eritrea loo qaaday oraahda iyada ah ee run ahaantii bulshada Soomaaliyeed ka yaabisay oo ka fajicisay run ahaantii oo ah arrin xanuun badan marka loo fiirsado ama la dhadhansado nuxurka hadalkaas oo ahaa in xukuumadda Eritrea ama dowladda Eritrea ay hortaagan tahay soo noqodka ciidankaas Soomaalida hadalkaasuna uu ka dhigan yahay daawade in ciidankaas Soomaaliyeed uu yahay ciidan la haystayaal ah oo la diidsan yahay xilliga kan isaga lagu jiro in ciidankaasu uu dalkiisii ku soo noqdo isla mar ahaantaana aan la caddayn sababta iyada ah ciidankaas Soomaaliyeed loo haysto ama hortaagan in dib dalkoodii hooyo loogu soo celiyo iyadoo aan ogsoonnahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqday bilihii ee hore siibaan iraahday July taanu waqtigu ama xusuustu aanay iga khaldanayn dalka Eritrea oo ciidankaas isaga ah cutubyo ama qaybo ka mida uu la kulmay isla mar ahaantaana ka soo jeeday oraah ah inuu riyaaqsan yahay qaabka ciidankaas isaga ah uu ku sugan yahay iyo xogtii uu ka helay intii uu ku sugnaa dalka Eritrea ee ku saabsan ama ku lug leh ciidankaas isaga ee Soomaaliya iyadoo hadalkaas isaga ah loo turjuman karo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud u bogay qaab nololeedkii iyo muuqaalka guud iyo wadciga iyo xaaladda
ciidankaas soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea ilaa iyo maanta ee ku sugan yihiin. run ahaantiina hadalkaas isaga ah ee hore dadka Soomaaliyeed uu ahaa mid ay ku diirsadeen, balse qoraahdatan maanta iyada ah ee ugu dambeysay ee ka soo yeedhay madaxweyne xasan sheekh maxamuud run ahaantii waa mid aad uga fajicisay, uga naxisay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana qoysaskii ay ka soo jeedeen ciidankaas isaga ah, iyo gaar ahaan sidoo kale taliska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo ay yihiin bahwadaagta ciidankaas isaga ah uu ka tirsan yahay. run ahaantii arrinkaas isaga ah iyo qoraahdaas ka soo yeedhay madaxweynuhu dhamma ahaan waa mid bulshada Soomaaliyeed run ahaantii argagixis ku riday. gunaanadkii iyadoo ay habboon tahay lana gudboon tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidii uu bulshada Soomaaliyeed yaralaad ugu iftiimiyey inay ciidankoodii ku sugan yahay xaalad khatar ah, sidoo kale looga baahan yahay inuu soo bandhigo ama uu u gudagalo sidii ciidankaas isaga ah dalkiisii hooyo loogu soo celin lahaa, isla mar ahaantana sidoo kale bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyo turxan bixin ku saabsan waxa ugu wacan oo hortaagan in ciidankaas isaga ah dalka lagu soo celiyo, iyo sidii loo furdaamin lahaa caqabadaha iyada ah ee hortaagan soo celinta ciidankaas isaga ah, hadday tahay mid dhaqaale maaliyadeed oo ah kharashkii lagu soo celin lahaa, ama haddii ay jirto sidoo kale arrimo siyaasadeed raadaacada oo ciidankaas isaga loo haysto. balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ka dhawaaqiyey, oraahdiisuna waa mid cad oo ah in ciidankii isaga ahaa ay ku yihiin dalka Eritrea ciidan la haystayaal ah oo halkaas ugu rahman yihiin dowladda iyo xukuumadda Eritrea. haddaan daawade dib ugu noqonno fiirada ciidankaas iyada ah, waxa cad in ciidankaasu yahay ciidan aad u tiro badan oo hordhacan ahaan xukuumaddii madaxweyne farmaajo ee ka dhawaaq siisay in si gaarana madaxweynuhu ugu dhawaaqay oo uu tilmaamay in ciidankaasu korka u dhaafay 5,000. isweydiintuna ay noqonayso ciidankaas isaga ah ee laga dhaqaajiyey dalkiisii oo dal kale oo shisheeye tababar loogu geynayo, inay ahayd in laga fiirsado inuu ballacaas isaga ah ee tirada ah aanu yeelan karin, oo hal mar tiro ciidan oo intaas la eg aan la isugu geyn dalka Eritrea, maadaama uu qorshuhu ahaa in
shantii sannadood ama 6dii sannadood oo ugu dambeeyey in ciidankaas isagaa lagu daldalayay dalka Eritrea. taasna ay ka dhigan tahay in ciidankaas isaga ah aan hal mar la geyn dalka Eritrea oo si googoosa oo teelteela loo geeyey. arrinkaasuna uu ahaa arrin wacna, balse qorshaha ay ka maqneed in ciidanka aan halkaas laysugu wada geen ugu dambayntii, iyadoo teelteel ka mida ciidankii aan dib looga soo celin. waana arrinka keenaya in halkaas tiro gaadhaysa 5,000 oo ciidana ay hal mar isugu yimaadaan ama kor u dhaafaya, aanna la soo celin, iyagoo gaadhay tirada mugga leh ee weyn ee intaas ah. run ahaantii arrinkaas isaga ah waa mid fiira u baahnaana fiirada markiisii hore oo lagu tilmaami karo inuu yahay arrin khalad ah. haddaynu daawade u fiirsanno ama anigu aan cabbiro aragtidayda ah arrimaha siyaasadeed ee hortaagan ama asbaabta hortaagan ee uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ciidankaas isaga arrin siyaasadeed loo haysto, waxaan ku tilmaami karaa iyadoo ay jirto in ciidankaas isaga ah ka hor laga qaybgeliyey dagaalada ka socda dalka Etoobiya, dagaalka sokeeye ee xukuumadda Etoobiya iyo qowmiyadda Tigrayga dhex maraya, in ciidankaas isaga ah loo adeegsaday. taasuna ay ka mid tahay asbaabta loo hortaagan yahay in si fudud ciidankii isaga ahaa dalkiisii loogu soo celiyo, si halkaas iyada ah aanay u dhacin ogaanshaha wuxuu ku dambeeyey ciidankaas isaga ah iyo wuxuu kula kulmay khasaare intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. sababta kale daawade ee ciidankaas loo haysto siyaasadeed waa iyadoo aan ognahay in taliska madaxweyne Asiyaas Afwerki uu yahay mid dalka Eritrea gacan bir leh oo dictatorship ah, kaligii talis ah ku haya. halkaasna uu ka jiro xitaa xaalad gadood ah oo dhacda mararka qaarkood ka dhex dhacda ciidanka Eritrea gudihiisa, iyadoo ay jiraan afgambiyo ciidan oo hore oo laysku dayey balse dhicisoobay. arrinkaasuna uu yahay mid ragaadiyey xukuumadda madaxweyne Asiyaas Afwerki. arrinkaasuna uu cabsi weyn ka hayo taliska Eritrea gacanta birta ah ku haya. ciidankaas Soomaaliyeedna uu yahay ciidan kayd ah, loo haysto kayd oo lagu talagalay in halkaas lagu sugo inta ugu dheer ee lagu hayn karo, si loogu adeegsado markii baahidu ay timaado in laga horgeeyo ama lagaga hortago ciidamo Eritrean ah oo ku dhaqaaqa xaalad afgambi ama gadood. asbaabtaas iyada ee labada ah baan run ahaantii u arkaa, u soo qaatay, u tixraacay inay yihiin asbaabta siyaasadeed ee ciidanka Soomaaliyeed uu ugu dambeeyey dalka Eritrea inay noqdaan la haystaya. daawade waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. intaan barnaamijka kan mid la mida ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.